howlgalkan oo ah midnimada xalay lagu soo bixiyay xaafado magaalada Baydhabo iyo waliba la xaqiijiyay amaanka walibana soo bixiyay ciidamada nabad sugidda iyo waliba sirdoonka walibana howlgalka lagu soo bixiyay qaar ka mid ah xaafado magaalada Baydhabo ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba iyo midmadan baaran xaafado kiyaala magaalada Baydhabo walibana si naxariis leh la dhaqmaayna shacabka idoosha la baaray ama xaafadoosha la baaray walibana iyo ciidamada sheegeen shacabka ujeedka howlgalka inuu say kolka xaqiijiyo amaanka maadaama ciidamada hamiin imaaran iyo teegin sidii dadka shacabka idoosho sinabadleeyon jiifada lahaayeen taliyaha ciidanka nabad sugidda sirdoonka ka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba shacabkan ka baaqay in iyo la shaqeeyaan ciidamada sinan xaqiijiyo amaanka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeeldeerkan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya howlgalkan lagu soo bixiyay magaalada Baydhabo iyo waliba sax ka beegamay xilli lagu guda jira diyaar garowga arrimaha doorashooyinka dalka iyo ona dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dhameystirtay doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ona hadda iyo harsanta doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Axmed Ali Ibrahim warbaahinta koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo Janay